xildhibaano ka mid ah aqalada baarlamaanka Soomaaliland ee wakiilada iyo guurtida ee Soomaaliland oo ka soo jeeda gobolka Salel ayaa xog waranaysiiyeen warbaahinta waxay si cad u beeniyeen wararka ku soo baxay jaraa'idka wadanka oo ku saleysnaa in bulshada deegaanka Saylac ee deegaanka Salel ku dhaqani ay ka soo horjeedaan wasiirka wasaaradda dibadejinta Soomaaliland mudane Axmed Cabdi Kaahin waxaana xildhibaanadan iyo mas'uuliyiintan si cad u sharaxeen taageerada ay u hayaan wasiirka ay ku leeyihiin xukuumadda iyagoo arrimaha sharaxayana waxa ka mid ah hadaladoodii waxaanu rabnaa inaanu kaga hadalno war ka soo baxay shalay jaraa'idka oo ambaareynaya wasiirka dibadda oo ay ku qornayd beeshu ninkaasi ma rabto mayso xidhiidh lama yeesho waxaan leenahay warkaasi waa waxba kama jiraan wasiirkaasi waa wasiir beesha ah beesha ku kalsoon tahay daba joogto waxqabadkiisana wax badan qabtay waa mid subxaanallah in maanta wasiirkaas Axmed Cabdi Kaahin ee dibadejinta waanan cadaynaynaa in wasiirkaasi hawlkar u yahay shaqadiisana u gudanayo waxa kale oo nudigayaa nimanka shaqaalaha dawladda ah ee siyaasadda iyaga aan loo dooran ku dhex jira ku dhex socda halka dawladda waxa ka codsanayna waxa siin waxba ka jirin iyo saxaafadda oo sheeganaa iyo wargeyska iyo jariidadaha inay waxa ay sheegan waxba ka jirin oo ninkaas sidii loo doortay uu joogo una shaqaynayo shaqadiisina uu ka adag yahay hadda waxa anagu beenayna waxa soo kale dadka lagu soo dhex tuuro haddii wasiir tahay haddii shicib tahay haddii xildhibaan tahay lagu soo dhex tuuro